is-arag wanaagsan daawadayaasha ku xiran page-ka YouTube-ka ee Kalkaal Media oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Aynu eegno warkaan idiin hayno ciidamo la mid ah maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq oo kale oo lagu wareejiyay ammaanka magaalada Muqdisho. Ciidamo military ayaa dhawaan lagu wareejiyay mas'uuliyadda amniga magaalada Muqdisho, kuwaasi oo haatan ka howlgala koontaroolada caasimadda iyo goobaha kale ee amniga ee magaalada laga soo galo. Sida ay heshay Kalkaal Media, ciidamadan oo shacabka Muqdisho loogu sheegay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasina amniga ay sugayaan ayaa la xaqiijiyay inay yihiin guuto cusub oo la yiraahdo ciidanka difaaca dadweynaha oo madaxweyne Farmaajo uu dhisay 14 Oktoobar sanadkii 2017 xilligaasi oo dhacay xasuuqii aan weli cidna mas'uuliyadeeda sheegan. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhamaadkii sanadkii 2017 waxa uu bilaabay dhismaha ciidamada difaaca dadweynaha, kuwaasi oo uu sheegay in Al-Shabaab ay la dagaalamayaan, balse ciidanka difaaca dadweynaha loo ogaaday in loo adeegsanayo sidii ay talada u hayn lahayd xukuumadda Farmaajo. Ciidanka difaaca dadweynaha oo aan waafaqsanayn sharciga dalka isla markaasina aan ka tirsanayn afarta ciidan ee qaranka uu leeyahay ayaa kala ah ciidanka militariga, ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, ciidanka booliiska iyo ciidanka asluubta ayaa madaxweyne Farmaajo u sameeyay inay u adeegsadaan caburinta siyaasiyiinta dhaliilsan hoggaanka iyo kuwa tartanka uu kala dhaxeeyo. haddaba sida uu qabo xildhibaan hore Maxamed Cumar Geedi, ciidanka difaaca dadweynaha ee madaxweyne Farmaajo uu sameeyay ay yihiin ciidamo sharci darra isla markaasina aan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda kale ee dhismaha ciidanka qaranka weligii la aqoon jiray. hadda ciidamada militariga waxay soo koriyaan markaan arkayna ayada lafteeda ma taqaanay warar hadda ku jiraan oo ciidanka hadda lafteeda la leeyahay guutadan 14 Oktoobar oo bariyan dawlad asaasay ku jira oo ciidanka militariga ahaa ee saxda ahaa ee dawladda lahayd ee nidaamyada military Soomaaliya ma yihiin mise ayaa war ku jira oo la leeyahay ciidamo difaaca shacbiga lagu magacaabo oo madaxweynaha mar dhexe ayaa lagu qarinaya oo ku jira warkaas tawa uu jira inkastoo maxaan dhigay u baahan tahay warkeeda iyo waqtigeeda inaan sugin marka wax kasta u baahan yihiin ha ahaadana ama wax xukun ku ilaashadana ama maxaa la jiray ummadda u sameeyaa aan leenahay waxaan ka digaynaa waxa waaye in sharci darro la maro ciidankaas oo dalka sharci kama ahan afar ciidan aan leenahay oo dastuuriga oo dastuur ku qorno oo baliyaasha dawladda iyo habdhismeedka organisiga dawladda Soomaaliya kamid ah sharciyeeyo oo la marsiyo goriyaasha u baahan yahay oo dastuurka lagu daro wax macna ma lahan, laakiin in sharci darro lagu kaco ayaa way dhibaatada hadda ay ka dhalan karta ciidanka noocaas wasiirkan hadalkiisii markaan tixraacno amniga qaranka ayuu khatar geliyay sababtuna waxay tahay xalay asaga shaaciyay in 25,000 in ka badan oo arday ay soo galan jibisay laga yaabo sanadaha soo socda inay 100,000 oo kale soo galan jibiyaan wasiirkii waxbarashada ee dalka ugu sareeyay xagga waxbarashada inuu ku dhawaaqo waxay khatar gelinaysaa amniga qaranka. waxaa suuragal ah in maxaan dhihi jiray ay fulkaanooyin kala qarxaan in dadkaas inay kacaan oo ay ku kacaan dawladda ayay dhalin kar lahayd habooneed marka sida in laga hortago waliba waxaan ku habooneed in sharciga la soo taago oo maxaa la dhibaatada u geysan lahayd inta leegtahay lagu qiimeeyo oo maxkamad la soo taagaa. ciidamadan la magac baxay ciidanka difaaca dadweynaha ayaa magac ahaan waxa laga soo minguuriyay maleeshiyaadka abaabulan ee la yiraahdo Xashdul Shacbi, kuwaasi oo ka dagaalama gudaha dalka Ciraaq. daawadayaasha ku cusub channelka Kalkaal Media waxaan ka codsanaynaa in subscribe, like iyo share intaba is ilaawin si ay wararka iyo warbixinada dambe ula socdaan insha Allah.